haatanna aan dib ugu laabanno wararka Somaliland baarlamaanka UK ayaa la filayaa in berri la horgeeyo hindise uu gadaal ka riixayo mudane baarlamaanka ka tirsan oo loo markaasi laga soo doorto degmada South waa Staffordshire oo dhowr iyo 20 kilomitir waqooyi kaga beegan magaalada Birmingham. Gavin Williamson ayaa ka codsanaya hindisaha in markaasi UK Jamhuuriyadda Somaliland u aqoonsato dalka madax bannaan Soomaaliya sida uu warkan ku faahfaahinayo Cabdiraxmaan Bidhaan Xaaji Daahir. dooda ayaa miiska waxaa soo saaray Gavin Williamson oo ah mudane ka tirsan xisbiga Conservative-ka talada haya isla markaasna hore u soo ahaa wasiirka gaashaandhigga ee Britain isagoo markii uu xilka hayayna Somaliland ku tagay booqasho uu kula kulmay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi. dhowaan ayaa wasiirka arrimaha dibadda ee Somaliland Dr. Ciise Kayd uu booqasho ku yimid dalkan Ingiriiska waxaana uu la kulmay mudanayaal ka tirsan baarlamaanka oo uu horkacayo Mr. Williamson. lama filayo haddaba in go'aan uu ka soo baxo dooda ku saabsan aqoonsiga Somaliland. hore ayaa haddaba dooda sidan oo kale loo qabtay laakiin waxay cadaadis ku noqonaysaa leeyahay dawladda Ingiriisku inay wax ka bedesho xiriirka ay Somaliland la leedahay iyagoo imkaba xafiis Somaliland ku leh Hargeysa ka furan isla markaasna siiya mucaawino. jaaliyadda Somaliland ee degan Cardiff, Sheffield iyo Birmingham ayaa hore ugu guuleystay iyagu inay degmooyinkoodaasi aqoonsadaan Somaliland inay tahay dal madax bannaan laakiin taasi dawladda dhexe ma khusayso degmooyinkaasina kama mas'uul aha siyaasadda khaarijiga ee dalkani. saxaafadda Ingiriiska iyo Taageer galbeedka ayaa baryahan dambe aad uga hadlaysay arrimo ku saabsan aqoonsiga Somaliland iyadoo aad moodo inay arrimahan imika xiiso u yeeshay xidhiidhka Somaliland iyo Taiwan dhexmaray iyo waliba hirdanka badda cas ee Shiinaha iyo Mareykanka u dhaxeeya iyadoo reer galbeedka iyo Shiinuhu ay hadda xifaaltan toosi u ka dhaxeeyo oo u eg dagaal qabow. dhawaana waxaa la filayaa in madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi uu Mareykanka ku tago booqasho sida xukuumaddiisu ay shaacisay. berri ayaa la ogaan doonaa haddaba bal waxaa ka soo baxa dooda baarlamaanka Ingiriiska ee ku saabsan arrimaha aqoonsiga ee Somaliland.